dhammaan waxaan salaamayaa taageerayaashayda dadka reer Awdal iyo Gabiley iyo dhammaanba dadka ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa salaan qaali ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamta islaamka intaa ka bacdi muddo ayaan la igu arkin miidiyaha hadal badan Soomaaliba wuxuu tari waayay sababo badan awgood baan u aamusnayn aniga iyo inta halganka ku jirtaaba ee aan afkooda ku hadlayaa sababaha badan shiinaha waxa la oran jiray wax badan buu qabtay wax badan ma sheegay Mareykanka iyo ku dacaadan jireen Yurubiyaanku wax badan sheegistu Soomaaliya wuxuu tari weyday muraadda la isku dhigay Soomaaliya wuxuu tari weyday miidiyaha lagu jiray Soomaaliya dhamaanteed buu wuxuu tari waayay gaar ahaan dhulkaan ka imanay waxaan dhalinyarada iyo shacabka reer Awdal iyo Gabiley u sheegayaa waxyaabo badan oo midnimadaynu ka mid ahayd oo ka dhibnaa inaanu qabanaynay inaan meel fiican hadda joogno oo aan wax tusi karno dadkeena inaan joogno ayaanu aamusnayn waayo waxaad weliba dhaqanka dadkeena moodaa dadka reer Awdal sidii gobolkii Mareykanka ee Mansuuri ee naanaystiisu ahayd show me state waxay tus bay dadkeenu jecel yihiin inaan wuxuu tusno ayaanu ku tashanay annaga iyo halgamayaashayadu waxyaabo wanaagsan oo aan tusi doono oo dantiinu ku jirto ayaa iska soo daba sii dayn doonaa hadda ama aad ku arki doontiin TV-yada iyo adduunkaba salaantaasaan maanta horta iyo inaan jirro oo shaqaynayno inaan tusno dhalinyarada ka yar 40 jirka ka yar rag iyo gabdhaba diyaar ha u ahaadaan waayo adduunka dhalinyarada difaacda dhulkooda dhalinyarada ilaalisa iyo ka energy haya dhalinyarada waxaan u sheegayaa future-keenu inuu wanaagsan yahay aad iyo aadna u sharaf badnaan doono Soomaalina markay goboladu sharci noqdeen iyo federaalka Soomaaliya uu sharci noqday gobol baa loo tartamay waxa loo tartamay state baa loo tartamay kuwa ugu horeeya xagga tartanka inaad noqon diibtiin baan inigu ballan qaadaya iniguna bishaaraynaya shaqooyina aad wada heli doontiin hadday yihiin kuwa miyiga jooga